السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبي الدعداء رضي الله عنه الله كرهنا النقضي وحقو كلها مقالة مدينة بير آد وين beertaas waxaa ka bixi jiray timir dadkana waxa ay jeclaayeen dabinta timirta Abi Dahdah in ay iibsadaan dhanka kalena meel cabaar u jirto waxa wiil dhalinyaro ah oo agoon ah ayaa waxa uu kulahaa beer maalin ayaa waxaa damcay wiilkii in uu dhisto derbiga ku wareegsan beertiisa wuxuuna u diray nin shaqaale ah in uu beerta ka soo shaqeeyo ninkii shaqaalihii ahaa ayaa beertii joojiyay wiilkii dhalinyarada ahaana wuxuu yiraahday maxaa kugu dhacay aad u jeejisay shaqadii beerta aad ka heysay ninkii shaqaalaha ahaa waxa uu yiraahday geetimireedkan ayaa soo galay geetimireedkan waxa iska leh ninka deriskaaga ah xal lama ogolo ee ma u tagtid geetimireedkan in uu kugu wareejiyo ama uu ka iibsado maadaama aad deris tihiin wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa wuxuu galay fakar asaga oo la yaaban waxa uu ka sameyn lahaa geetimireedkan ninkii ama wiilkii kale ee ka shaqeynayay beerta ayaa yiraahday oo maxaad u aamustay ama la fakaraysaa wiilkii agoonka ahaa ayaa waxa uu yiraahday ninka deriskayga ah nin wanaag doonayo ma ahan waa nin aad iyo aad u xun si kasto aan ula hadlana war iga yeeli maayo laakiin waa u tagayaa waana soo weydiinayaa haddii uu war iga maqlayo wiilkii dhalinyarada ah wuxuu u tagay ninkii deriskiisa ahaa ee iska lahaa geetimireedkii waxa uu ku yiraahday saaxiibkayga deriskayga ahow waa ogtahay derbigan ayaan dhisayay geetimireedkana meeshaan ayuu ku soo aaday oo dhanka beertayda ah ayuu soo galay derbiga haddii aan dhammaystirana geetimireedka aniga xaggayga ayuu soo marayaa haddii geetimireedkan aan ka leexdana tibir badan ayaa xaggaaga iga soo marayso maadaama hal xaboo yahay waxaan doonayaa in aad igu soo wareejisid ninkii waa uu diiday wuxuu yiraahday geetimireedkayga kugu wareejin maayo kuna siin maayo wiilkii ayaa yiraahday waa yahay waxaan doonayaa si aan derbigayga u dhammaystirto in aad iga iibisid geetimireedkan ninkiina waxa uu yiraahday maya kaama iibinayo sababtoo ah geetimireedkan waa jeclahay tibir badan ayaan iga soo baxdo wiilkii ayaa damcay in uu ninka qanciyo waxyaabo badanna uu ku qanciyo asaga oo si walba ula hadlay laakiin ninka wuxuu ahaadaba waa uu diiday in uu ku wareejiyo geetimireedkii wiilkii ayaa wuxuu yiraahday waa yahay anigu waxaan u tagayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana u dacwoonayaa arrintaadana oo u soo bandhigayaa sidaas ayaa wiilkii ku baxay waxa uuna aaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uuna u sheegay arrintii asaga iyo ninka deriskiisa ahaa dhex martay iyo geetimireedkii nabiga calayhi salaatu wasalaam akhbaar ayuu waxa u diray ninkii markii uu imaaday ayuu weydiiyey arrinta geetimireedka oo wiilka oo ka dacwoonayay asagana waa uu ku raacay oo sidii wiilkii u sheegay ayuu ku raacay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yiraahday waa yahay ma geetimireedka siisid haddii aadan siinayninna ma ka iibisid waxa uu yiraahday maya yaa rasuulallah anigu geetimireedkayga waan jeclahay ka iibin maayo siina maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yiraahday niyahow ma jeclaan lahayd geetimireed jannada ku yaallo in lagugu bedelo midkaas oo ninka farasta fuulan 100 sano harkiisa oo dhex lugaynayo ninkii ayaa fakaray waxa uu yiraahday waan jeclaan lahaa laakiin aniga geetimireedkayga ayaan rabaa asxaabtii meesha fadhisay ayaa la yaabay oo waxay dhaheen nasiibka ninkan yeeshay bal fiiriya geetimireed jannada ku yaallo ayaa loo ballan qaaday waxayna u dhigantaa in uusan naar gelaynin maadaama uu geed jannada ku leeyahay wuuna ka faa'iidaysan waayey nebigana wax run ah ayuu ku hadlaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa mar kale ugu celiyey warniyahow soo kuma anfacayo geedkaas jannada ku yaallo miraha badan macaan leh harkiisa intaas la egyahay in aad la wareegtid ninkii wuxuu yidhaahaa yaa rasuulallah waan jeclaan lahaa geedkaas timirta ee jannada ku yaalo laakiin anigu waxaan ka jeclahay geetimireedkaygan waan jeclahay
abi daxdaax oo meeshii fadhiyey asxaabtii fadhiyey ka mid ahaa ayaa soo istaagay. yaa rasuulallah, haddii aan ninkan timirtan ka iibsado oon wiilka ku wareejiyo, geedtimireedkaas jannada ku yaallo ma helayaa? Nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu u jawaabay, haa, waad helaysaa. abi daxdaax ayaa waxa uu u jeestay ninkii. waxa uu yidhaahday, niyo mala socotaa beer weyn in aan ku leeyahay magaalada Madiino? ninkiina waxa uu yidhaahday, haa, ma qof aan ogeyn ayaa jiro geedtimireed beertaada timirta ah oo meeshan ku taallo? wuxuu yidhaahday, waa yahay, meeqa geed oo timireed ayaa ku taallo? ninkii ayaa soo booday. wuxuu yidhaahday, waxaa ku taallo 600 oo geed timireed ayaa ku taallo. sidoo kale qasri weyn ayaa ku yaallo. waxaa kaloo ku yaalla meeshaas ceel ayaa ku yaalla, biyihiisa macaan yihiin. waxaa kaloo ku yaallo derbi weyn oo qurux badanna waa uu ku wareegsan yahay. abi daxdaax ayaa wuxuu yidhaahday, ka waran haddii aan kugu wareejiyo beertaas dhammaan, miygu soo wareejinaysaa geedkan? ninkii ayaa intuu la yaabo wuxuu yidhaahday, ma i yaraysanaysaa oo ma igu ciyaaraysaa? abi daxdaaxna wuxuu yidhaahday, maya, ma kuga ciyaarayo, ee ka waran timirta geedge baxdo? ninkii ayaa wuxuu yidhaahday, ma qof Madiino joogto oon timirtaas in uun gato ama isticmaalo aan jecleen ayaa jiro? wuxuu yidhahdeen, waan kugu wareejinayaa. ninkii oo la yaaban ayaa rasuulka u jeesaday. yaa rasuulallah, ma ka markhaati tahay ninkan waxa uu sheegayo oo leeyahay waxaan kugu wareejinayaa geedtimireedkaas? nabigana wuxuu yidhi, haa. ninkii wuxuu yidhaahday, beertayda yartaa waan kugu wareejiyey haddii aad beertaas isiinaysid. sidaas ayaana heshiiskii ku dhacay. kadibna abi daxdaax waxa u jeestay wiilkii yaraa. waxa uu ku yidhaahday, wiil yahow, geed timireedkii ninkan aad isku haysateen aniga ayaa hadda la wareegay. adiga ayaan kugu wareejiyey. waxa arabtid ku samey, ama beer ka dhigo ama gooy. beertaas geedka timireedkaas adiga ayaan ku hibeeyey. abi daxdaax wuxuu ku soo noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam. yaa rasuulallah, geedkii waan la wareegay, waxaana ku wareejiyey wiilkii. ma leeyahay geedkii timirta ahaa ee weyniga badnaa ee qurxoonaa ee aad ninkaas u ballan qaaday? nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxa uu yidhaahday, maya. abi daxdaax wuu isku naxay. kadibna nabiga ayaa waxa uu ku yidhaahday, abi daxdaaxow, adiga ilaahay dartiis ayaa waxaad u bixisay beertaadii ayaa u bixisay. ilaahayna waxa uu kugu bedelay beero waaweyn oo geedo badan ay ku yaalaan ayaa ilaahay jannada kaaga dhisay. oo qof kasta oo geeska gees in uu gaaro isku damcana uusan gaari karin. abi daxdaax aad iyo aad ayuu u farxay, waxaana ka imaada wejigiisa ilin. ninkiina wuxuu ugu faraxsanaa beerta la siiyey. abi daxdaaxna ballantii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee u ballan qaaday in uu geed ku yaallo beero jannada ku yaalla siinayo ayuu aad iyo aad ugu faraxsanaa. waxa uu ku soo noqday gurigiisii. xaaskiisiina waxaa soo gaartay akhbaartii ah in abi daxdaax oo beerihii dhammaa wareejiyey. wuxuu yidhaahday, beertan waan iibiyey, waxaanan ku iibiyey geed jannada ku yaallo ayaan ku bedeshay. gabadhii aad iyo aad intay u faraxday ayay waxa ay ku tiraahday, abi daxdaaxow, waad guulaysatay oo waa ku faa'iiday. beecsharadii aa maanta samaysay waa ku guulaysatay, oo dhammaanteenna waan ku guulaysanay. oo ma aysan dhihin xoolo la-aan iyo beero la-aan ayaana dhigtay, ma aysan dhihin. oo gabar iimaan leh ayay ahayd. waxa ayna ku faraxsaneed in ay warkii rasuulka aamineen, ayna qaateen, ayna ehlo janno yihiin ayay ku faraxsaneed. ninkii kalena waa uu la garan waayey yabahii rasuulka. sidaas ayaa adduunyo u doortay abi daxdaax iyo reerkiisiina sidaas ayay ku doorteen qiyaamaha iyo jannada. halkaas ayaan maanta qisadeennii kusoo afbeeraynaa. adiguna ha naga ilaabin in aad subscribe na siisid, sidoo kale like aad siisid. waxa ay qisadan kula tahayna aad komaniga inooga soo bixisid. waadna ku baahsan tahay sida qiimaha badan ee aad noola socotid. wabilaahi tawfiiq.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.